أنت مرة كيسو قدو سومالي لاني إسلام دي مانتا waxaan iska oranaynaa de ma jirto waana wada ognahay waana u qoondeysanahay waxa weeye maaragtay waana waxa aan ku socono weeye nidaamka Puntland ragga u shaqeeya waxa weeye waxaan idin leenahay cagaha dhulka ku haya dadka midnimadiisa burburinida halganka idinkoo wixii naa wata haddaad halgan ka qayb qaadanaysaan ummadda aad ka mid ahaan laakiinse waxay ummadda inaad dabar jabisaan oo aad kala qaybisaan waxa weeye maaragtay wax soconaya ma aha xal baa ka furan هذا سوماليلاند واحد على حلا وكفر ما تكون حبض هاي وقرنزان لكن رجع وشقية مملكة بوتلاند حل هذا البا كفرا وحنا ودلنا النهاية تذكي إنها كدح بحنا هذا كدح بحضان وحوي واحد فينا أنت مارك أنت سوكسو كويا سيقولنا وحوي مارك تي ما هذا علم بالله رمبري دي سو كذا إنه هذا وقته أدقي هاي نينك هذا يو وعبد المذوبي وأن قرنا إنسان وأنكي ودويك قدام بيجيبه Somaliland إنه ممكن استلمت أدي وبعد جوبين مرء إن أركان نكاس أو صهاد مركز ساكولة هي وحلا سقطان دجال الدورة أو داعي إن رئيس Somaliland شيء جين إن عبد المذوبي ودجال كاس وكوجري يودي بس عبد المذوبي أرنتاس وأسكت دكتوري وأكا مصي mana ka hadalno mana ka hadlin waayo inaad qofkii dhawaaqaba u jawaabto meel kasta ka soo muuqato oo sumcad beeleysa qofka aadamahu ama shay kastaba wuxuu ku fiican yahay inta ma taqaanay oo la yahay oo uu isqarinayo haddii maanta gurigan aad ku jirto oo bulshadaas aadan u banbixin oo bulshada isku arkaynin marka u tagto way ku xiisayaan lehada maalinta dhex taagnaato waa isdiriraysan buuqina badan wixii waa shaakil baa loo halaleegalaya saadaradeed marka Cabdi Madoobe intii aragtay ee dadka ay hadlayeen waa iska aamusna maanta ayuu ciidan soo qalin jibinay la hadlay marka laba qodobba uu ka hadlay oo wuxuu yiri midan Somaliland SNMta wuxuu waa budo gooni u tuman oo nimankaas xabad iyo dagaal iyo dirir baa naga dhaxayo dirirtaas yaa isku ogna waa sax laakiin dadka inaga naga mide ee Puntland ma taqaanay ku jira ee doonay inay maamulka isay khaatuma ay burburiyaan kuwa marka wuxuu yiri waa inay ka fiirsadaan waxyaabahaas oo dadkii halkan u dhintay u shahiiday ku naafoobay hadda jooga eegana san dhiigoodii iyo waxay u socdeen uu san noqon hal bacad ku lisa way ummadan waxay u socdeen u ordeen muxuu ahaa inay helaan inay iyaga ismaamulaan iskod tiina meeshii ugu wanaagsaneed ugu fiicneed bay maraysaa waad aragteenoo tan iyo intii hadda ay iyaga ismaamulayeen dee wanaag badan iyo horumar badan baa ma taqaanaa meeshii ayaa ka dhaca afka la isku soo duubanayay iyo wixii la iswanjalay baa meesha ka baxa saa daraadeed marka guulahaas ay gaareen tirada badnaa in maanta laga dhigo hal bacaad lagu lisay dee wax wanaagsan inaysan qof kasta ma taqaanaa waa og marka Cabdi Madoobe fariinta noocaas yuu diray أنا أصلا نقولنا ما كهذا الحين فرض بدنيد دنك السومال لك إيماني السيء كوسع بسن عبد المذوب ولد عبد المذوب والشخصي وآدمي والنولي ساعة رادة مكة واللمن وحنا كل مرة يا مالك تيسي أي تمادو خالد بن ولد وحجري كركيجا كركي بجري مال la saaro far saa dhamaystiran la saaro ma jirto ilaa waxa ku yaalo nabar dhaawac ku yaalo oo bogsada saasoo ay tahay maanta wuxuu yiri haddana waxaan ku dhimanayaa sariirteeda dusheeda ee ku dhimanayaa waa sababta markuu iskaga dhigay markuu dhimanayay sidii qof ma taqaanay jihaad ku jiro oo kale
وحرت عن بربرتك كوفي دب حرتي وكان سيدي بطانا يو عيدك أمر بحية قيلي ودعي مرك ونفح marka nin kasta tii loogu talagalay horta ku dhiman kii xabad loogu talagalay ku dhinto ku dhiman kii iskii mataqaanay wadnaha u istaagaya kii mataqaanay sirris ku dhimanaya nin kasta iyo meeshii loogu talagalay inuu ku dhinto horta ku dhiman afkaas da ka qaylina maanta dhan oo nirahano heeruu dhintay kuma dhimanay macquul galna mataqaanay maaha marka cawaadkii farada badnaa muddooyinkii u dambeeyay ba socday dhowrkii sanad baan dhahan ku dhawaadba oo ay lahaayeen ninkaas waa geeriyooday dibdaba looma arkayo waxaan u malayn inuu soo afjarmay oo intaas ay kulli ku qoys qaadan doonaan malayn waa haday qoys qaadanayaan Cabdimadoobe tani markii dagaalka u bilowday ugu horeeyay dadkii ugu horeeyay Soomaaliland ee deedaysay ee aadka uga baqday buu ahaa waxa yeelayeen kartidiisa arkeen halyeynimadiisa arkeen inuu nin wax gari karo uu yahay ba arkeen xitaa lacag bay soo bandhigeen $600,000 bay inuu qaado barnaamijka naga mar orod maxaa koonfurta iyo meelahaas iska aado oo nadaa u ka diiday muxuu diiday wuxuu diidanaa dadkiisa oo la dhibaateynayo inuu asaga lacag iska qaato oo uu cuntami weyday waa sababta marka uu diiday oo uu yiri may ma qaadan karo uun ola diriray oo ola dagaalay oo meesha artan kaga soo noqday على كل حال مركا قضب كان انت ان شاء الله كيغا تغينا وحو ان شاء الله كسو كوردانا حساب جيده هور كجirtana waad maqli doontaa muuqaalka la wadaaga saxaabada tidiisa arkeen halyeynimadiisa arkeen inuu nin wax gari karo uu yahay ba arkeen xitaa lacag bay soo bandhigeen $600,000 bay inuu qaado barnaamijka naga mar orod maxaa koonfurta iyo meelahaas iska aado oo nadaa u ka diiday muxuu diiday wuxuu diidanaa dadkiisa oo la dhibaateynayo inuu asaga lacag iska qaato oo uu cuntami weyday waa sababta marka uu diiday oo uu yiri may ma qaadan karo uun ola diriray oo ola dagaalay oo meesha artan kaga soo noqday على كل حال مركا قضب كان انت ان شاء الله كيغا تغينا وحو ان شاء الله كسو كوردانا حساب جيده هور كجirtana waad maqli doontaa muuqaalka la wadaaga saxaabada tidiisa arkeen halyeynimadiisa arkeen inuu nin wax gari karo uu yahay ba arkeen xitaa lacag bay soo bandhigeen $600,000 bay inuu qaado barnaamijka naga mar orod maxaa koonfurta iyo meelahaas iska aado oo nadaa u ka diiday muxuu diiday wuxuu diidanaa dadkiisa oo la dhibaateynayo inuu asaga lacag iska qaato oo uu cuntami weyday waa sababta marka uu diiday oo uu yiri may ma qaadan karo uun ola diriray oo ola dagaalay oo meesha